مناسبة قروة ومالتي مقالو ينكون عيشوية مدن مولاينا قسمي مرتغي مالو ميرو الباطل كامل قيسي مولاينا قسمي مرتغي مالو ميرو الباطل كامل قيسي kadib markii ay soo dhamaatay xafladii weyneed ee furitaanka toddobaadka xuska magaalooyinka dalka ee ka qabsoontay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa waxay mas'uuliyiinta dalka iyo deegaanku u soo kaceen dhinaca goobta bandhiga carweedka magaalooyinka ku soo bandhigayaan hal abuurada ganacsiga dhaqaalaha dhaqanka iyo magaalo kasta waxa goonida u leedahay halkaas oo ay si rasmi ah u daahfureen xadhigana uga jareen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwo Sahla Warqi Sawdu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo guriyeenta dalka mudane Jandirar Abay kadib furitaan iyo xadhiga jarka bandhiga carweedka xuska sideedaad ee magaalooyinka dalka oo ay Jigjiga marti gelisay sanadkan ayaa waxay madaxweynaha dawladda Soomaalida madaxweynaha dalka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalku si wada jir ah u kormeereen magaalana u dul istaageen iyagoo u kurgalay bandhiga carweedku sidoo yahay iyo qaabka magaalo kasta u soo bandhigtay waxyaabaha ay xuskan kaga qayb qaadanayso dhinaca kale mas'uuliyiinta dalka iyo deegaanka ayaa inta goobtan joogeen waxay dhiiri gelinayeen ummadaha kala jinsiga ah ee ka soo qayb galay xuskan iyaga oo mid kasta dhaqankooda goonida ah kula ciyaarayay taasoo dhiirigelin u noqonaysa bulshadan kala dhaqanka ah munaasabadan xuska toddobaadka magaalooyinka dalka oo ku soo beegantay xilli isbedel dalka iyo deegaanka ka dhaceen ayaa noqonaysa mid bog cusub u furaysa isdhaxgalka isfahanka wada noolaanshaha ummadaha kala duwan ee ku wada nool dalka Itoobiya oo qarniyaal iyaga oo kala jinsi ah kalgacal ku wada noolaa munasabada qarawa wa maalintii magaalooyinka عيشوية